dad waxay ka shaqeeya 20 sano ka shaqeynaya dad 30 sano ka shaqeynaya dad 15 sano ka shaqeynaya dad 40 sano ka shaqeynaya ila shaqeeyo markasta aan fasax dalbado layma siiyo because dadkii iiga priority-ga badnaaya buuxo marka sidaas daraadeed shaqadeedii aan fasax aan ka helaynin marka hadda fiisa Shanghai xataa hadaan dalbado oo Europe oo ay soo baxdo oo baasaboorkayga yar la iigu dhufto shaqadeedii aan fasax ka helaynin marka of course we are not lawyers ana qareenna manihin laakiin wax kasto oo shacabka Soomaalida markii lagu leeyahay society-ga oo aan ku tahay wax kasta lagu weydiina wax walba aad tahay waxa loo baahan yahay in wax laga ogaado marka waxyaabaha aadan ogolayn in wax laga ogaado you better keep bismillah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh walaalaha Soomaalida sharaf ku noolaada cizi ku noolaada idin leeyahay meel kasto joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena haddaba haddii ay tahay markii kuugu horeysay oo aad nasoo booqanayso waxa codsi iga ah inaad subscribe-ka noo saarto like-tana ama ka hadlin markaad barnaamijka dhageysato oo wax badan oo fikir aad ilaahay kuma darnaaday aad ka hesho waxaan ka codsanaynaa afkaartaada quruxda badan inaad nala wadaagto haddaad doonayso in asxaabta saaxiibada oo kala ayagana ay barnaamijka si fiican uga warqabaan ama ay la socdaan ama ay ogaadaan share gareey intaas oo ay ka sii horeeyo maantay kulli anaga waxaan isaga jirnaa social media sidiisa waa iska barnaamij badan yahay anaga Soomaaliya hadaan nahay maalin wax baadino cusub marka horta guys I'm very sorry lately maalmihii ugu dambeeyay wax mana post gareyneen xogaa arrimaha iska jiray mashquul arrintaas awgeed waxay sababtay in postigii faraha badnaa aan waqti u waayo laakiin insha Allah hadduu Ilaahay kala noqdo way idin soo celin doonaa waana isa socon doonaa waxaan ka hadlaynaa sida aad aragteen halkaas qays maalmihii ugu dambeeyay waliba sanadkan cusub uu travel gareynayay ama bilaa kuma darnaaday wuxuu kala socday caalamka hadba meel buu tagayay kulliday waa fanaan caalami ah marka waxaa dhacday xaaskiisa Jimca Joker oo ah fan maxalli jiray actorad oo ay kuma darnaaday jilaawin oo Soomaalida dhexdeeda ixtiraam iyo qadar ku leh oo ilaahay kuma darnaaday qof aad loo ixtiraamo baa marka waxa lagu weydiiyay hadda ka horna dagaalo fara badan ay gali jirtay oo dadku markii social media lagu jiro waa isqabanaya Carabiga markay qof isdagaalaanbo waxa lagu qabsan jiray qoftaan passport maahan sharci maahan meesha ay kale ku joogtaa marka maanta afkay furtay marka waxay mar su'aal laga weydiiyay su'aal noocaas oo kala ahayd maadaama odaygaada ama saygaada uu ilaahay kuma darnaaday safaradiisu ay badan yihiin oo hadda Sweden uu qabtay show oo uu Europe inteeda kala tago maxaa keenay in aad adiga raaci weydin maadaama aad hadda dhow isguursateen oo dadku markay isguursadaan oo isku cusub yihiin waxa laga bartay inay israacaan oo meel kale isku aadaan sababtoo ah qofta aad guursatay oo cusub of course you have to go with her all the time whenever you feel like going with her so that was a kind of question that she was asked by some people marka su'aashaas la weydiiyay qaabkan ayay ugu jawaabtay ayaa ninkaygu ula travel gareyn waayay because waan shaqaystaa gaari waa wataa wadanka sharciyan ku deganahay 9 lambar oo social security aan leeyahay green card aan leeyahay laakiin baasaboorka weyn oo citizenka Mareykanka ma haysto bisha 6 aan qaadana insha Allah wixii ka dambeeyo waa sarkeena samar marka sidaas daraadeed ogaada dhowr jeer every time sharcigayga wax liiga weyd okay marka annagana waxaan Ilaahay uga baryaynaa Ilaahay jalla wa ala inuu u fududeeyo sida ay sheegtay June bisha kala baraheeda 2022 wadan ku wada jirno ayaa waxay sheegtay inay helayso sharcigeeda annaga ka Soomaali ahaan ka shacab ahaan ka well wishes ahaan waxaan u rajaynaynaa inuu Alla jalla wa ala u fududeeyo marka social media waa meel iska cashir badan waa meel ilaa isku daraaday iska macna badan waliba qofka markuu magac leeyahay oo kale waa sensitive ama danqasho badan wax yar oo qalad hadii lagu arko waa lagu waxeenaya marka
haddii aad tahay qof social media ku jiro qof caana qof baraha bulshada laga yaqaano oo haddana dulqaadkaada uu yaryahay waxaa mar walba kuu fiican inaad is aruuriso sababtoo social media is another level annaga haddii adiga familkaada qoyskaada wixii ka dhaco aad noo keentid social media we are here to tell the entire world not even Somali people laakiin caalamkeena aan wada sheegno taasaa muhiim noo ah so haddaad og tahay in arrimahaada gaarka ah aad jeclayn in social media la keeno social media laga hadlo adiga you yourself ha keenin social media rag badan aan ognahay oo intay keeneen social media arrimahooda waxaana barnaamijyadana ka mid ah baasaboorada oo kale hadhowna laga falaanqooday barnaamijka baasaboorka of course we are not lawyers anaa qareena ma nihin laakiin wax kasta oo shacabka soomaalida markii lagu leeyahay society-ga oo aad caan ku tahay wax kastaa lagu weydiinaa wax walbo adi aad tahay waxaa loo baahan yahay in wax laga ogaado marka waxyaabaha aadan ogolayn in wax laga ogaado you better keep it secret don't bring it on social media that is my simple advice to you anyway haddii ay tahay markii kugu horeysay mar walbana waa in sheegaa guys subscribe-ka saara channelka like gareeya share gareeya asxaabta kale la wadaaga commentigiina quruxda badanna nala wadaaga bal annagoon warka iyo waqtiga sii dilin hadalladan yaree kooban aan ka dhagaysano awan legend Nimco Joker hay Nimco dad waxay ka shaqeeya 20 sano ka shaqeynaya dad 30 sano ka shaqeynaya dad 15 sano ka shaqeynaya dad 40 sano ka shaqeynaya ila shaqeeyo markasta aan fasax dalbado layma siiyo because dadkii iiga priority-ga badnaaya buuxo marka sidaas daraadeed shaqadeedii aan fasax aan ka helaynin marka hadda fiisa Shanghai xataa haddaan dalbado oo Yurub oo ay soo baxdo oo baasaboorkayga yar la iigu dhufto shaqadeedii aan fasax ka helaynin yes that's all so anyway guys I don't want marraba inuu video iga sii daba dheeraado videoga lagu soo duubay waxaa la geliyay waxaa la jiray lightina ku baxay editina ku baxay waqtiga galay adigana dee waajibaadkaada gudub